Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada TX Technology. Waxaynu halkan ku qaadan doonaa qaabka aad isku diiwaangelinaysid luqadda Ingiriisiga adigoo isticmaalaya moobilkaaga gacanta. Aynu bilowno. Waxaad soo furan doontaa marka ugu horeysa browserka kugu jira moobilkaaga sida Google iyo wixii lamid ah. Google-ka aynu soo furano. Waxaad ku qori doontaa tx.com. Wakaas website-ka markaad sidaa usoo gashid halkan baad taaban doontaa kadibna category baad oran doontaa language ugu hooseeya language course. Halkaas course-ka ABC-du kaaga soo baxayaad ka dooran doontaa amaba waxaad samayn doontaa halkan baad hoos u socon doontaa hoosta ugu hooseysa tegi doontaa kuwa category-yadii language category-gaas aad dooran doontaa course-ka ABC-du waa kaas. Markaad ku dhufatid halkan ayuu ku keenayaa. Halkan marka uu ku keeno hoos ayaad u socon doontaa halkaas start learning ay ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa $16 ku qoran tahay. Markaas sidaynu sheegnay course-ku 2 bilood buu soconayaa. $16 waa labada bilood haddii aad mar wada bixinaysidna waad wada bixin kartaa. Haddii aad bilba gaarkeeda u bixinaysid $8 habkan ayaad isticmaali doontaa insha Allah. Start learning baynu ku dhufananaa. Wakaas wuxuu ku odhanayaa ma Gmail baad isku diiwaangelinaysaa mise Facebook account. Marka Gmail baynu dooran doonaa imika. Gmail-ka marka aad doorato wuxuu ku keeni doonaa qaybtii Gmail-ada moobilkaaga ku jiray oo dhan. Dhammaanba Gmail-adaas hadda moobilkayga ayay ku jiraan. Ha ku khalkhalin ee Gmail-kaaga saxda ah ayaad dooran doontaa. Haddii aanu Gmail kugu jirinna geli buu ku odhan doonaa email-kaaga iyo password-kaaga. Marka aniga imika Gmail-kaygaas ayaan ku gelayaa TX Technology. Markaan Gmail-ka sidaa ugu dhufto wuxuu igu soo celin doonaa isla meesha aan imika joognay aynu start learning kaga dhufanay buu igu soo celin doonaa. Haddana mar labaad ayaad ku celinaysaa start learning oo aad ku dhufanaysaa wakaas. Qaybtii lacagta ayuuna keenay hadda. All seasons baa ugu sarreysa. Haddii aad labada biloodba hal mar wada bixinaysid all seasons taas sare ayaad ku dhufan doontaa. Haddaad isticmaalisid qaybta sad ayaad geli doontaa. Wakaas 138,000 iyo 240 shilin ayuu ku leeyahay kusoo dir ku iibsada 505319 nambarkii aad lacagta ka soo dirto ayaad halkaas soo gelinaysaa. Submit marka tiraahdo toos buu kugu furaya course-ka. Qaybta sahashuna waa la mid iyaduna waa la mid oo $16 ayaad ku diraysaa nambarkaas 0636159129. nambarka markaad lacagta kusoo dirtid ee qaabkii caadiga ahaa ee lacagta u diri jirtay kusoo dirtid halkan unbaad soo gelinaysaa nambarkaad lacagta kasoo dirtay kadibna submit unbaad taabanaysaa. Qaybtaas sare all seasons waxaan idhaahdaa markaad labada biloodba hal mar wada bixinaysid. Haddii aad bil kaliya imika bishan course-ku bilaabmay haddaad bixinaysid lacagteeda waa $8. Sidaan sheegnay sad halkan unbaad waxaad gelinaysaa nambarkii aad lacagta kasoo dirtay markaad lacagtaada soo dirtid. Sad markaad ku dhufatid wakaas wuxuu ku leeyahay 69,000 ku dir 69,120 shilin ayaad ku diraysaa lambarkaa ku iibsada ah. Halkan marka aad gelisid nambarkii aad lacagta kasoo dirtay submit baad taabanaysaa. Checking your payment buu ku odhan doonaa success happy learn wanka inoo soo qoray. Waa tan casharkii koowaad laynoo furay belay baynu odhan doonaa. Wakaas halkan ayaad ka tegaysaa liiskii casharada. Waa kuwan episode 1 waa ABC volume 1 baynu ku jirnaa aynu lacagtiisa bixinay. Episode 1 waa kan. Episode 2 casharkii labadood geli kartaa oo sidan unbad episode 2 intaad ku dhufato ayuunbaad halkan ku dhufanaysaa videogii oo kaa casharkii labaad halkaas ka soo baxaya isaguna. Episode 3 sidoo kale waad geli kartaa. Episode 4 casharaanta dhammaanba intan volume 1 ku jirta waad baran kartaa bishaas muddada bisha ah baad ku qaadanaysaa intaad doontaa ku celcelinaysaa. Episode 4 inoo soo baxay. Episode 1 baad ku noqon kartaa oo isaguna daawan kartaa haddana dib ugu noqon kartaa balay baynu odhananaa. Wakaas casharaanta saa doontaa ayaad u dhiganaysaa bishaas. Marka bishani kaa dhammaato bisha labaad ayaad geli doontaa marka. Halkan oo kale waxaa kugu qoran my courses baad ku dhufan doontaa dhammaanba courseska aad iska diiwaangelisay. TX Technology ayuu halkan kusoo dhigay imika course-ka ABC oo kaliya is diiwaangelinay. Halkan oo kale ayaad ku dhufanaysaa
course discussion markaad rabtid inaad macalinka la xidhiidho halkan aad course discussion ka dhufan doontaa. wuxuu ku geynayaa qaybtaas deeto waxaad odhanaysaa asalaamu calaykum macalin, halkaasaad macalinkii kala hadlaysa ka macalinka halkaasaad kala soconaysaa, macalinkuna halkaas kaaga soo jawaabayaa. ardayda kale waxay weydiiyaan macalinka oo dhan halkaasaad ka arkaysaa iyo jawaabuhu macalinku bixiyo kale. halkan baad tegaysaa deeto akoonkaaga waad ku dhufanaysaa, my courses baad odhanaysaa, continue learning baad odhanaysaa. wuxuu ku geynayaa qaybta casharada aad ka dhiganaysa kuwa casharada. okay markaad rabtid inaad ka baxdidna halkan baad log out ka odhanaysaa.